gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi oo la hadlay warfidiyeenka ayaa waxa uu ka hadlay waajibaadka bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland kor u kaca ku yimid qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland boqolkiiba 22 iyo sidoo kale daraasad uu bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka sameeyay sarifka iyo sidoo kale iswaafajinta maciishada ugu horeyn gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi waxa uu sharaxay waajibaadka bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu u xilsaaran yahay banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la aasaasay 1994 waajibaadka asaasiga ee ugu muhiimsan inuu qabto banka dhexe waxaa kamid ah inuu sameeyo siyaasadda lacagta ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu dejiyo ascaarta gudaha inuu sameeyo lacagta waraaqaha iyo lacagta qadaadiicda inuu diiwaan geliyo baananka shirkadaha caymiska sariflayaasha iyo hay'adaha maaliyadeed ee kale ee dalka ka howlgala Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo uu sheegay in uu kor u kac ku yimid qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland boqolkiiba 22 waxa uu sanadkan 2019 iyo sanadkii 2018 uu ku guuleystay inuu kor u qaado qiimaha shilinka Soomaaliland boqolkiiba 22 marka la barbar dhigo dolarka Mareykanka kor ku caas ku yimi qiimaha shilinka Soomaaliland wuxuu si weyn u anfacay dadka danyarta ah iyo dadka dakhligooda ku hela shilinka Soomaaliland oo ay ugu horeeyaan shaqaalaha dawladda ciidamada qalabka sida kalluumaysatada beeraleyda muruqmaalka iyo dadka kale iyo xoolo dhaqatada kor u kaca ku yimid qiimaha shilinka Soomaaliland ee aynu sheegnay inuu ahaa 21% waxa barbar socday dejinta iyo fariisinta sarifka shilinka Soomaaliland oo imika bilihii ugu dambeeyay saldhigay 8400 oo shilin halkii doolarba sida la wada socotaan sarifka halka doolar wuxuu cagacageeyay 11,000 oo shilin horaantii sanadkii 2018 fariisinta shilinka Soomaaliland wuxuu meesha ka saaray heehaabkii iyo xasilooni daradii haysatay goobaha ganacsiga iyo suuqyada sarifka waxaana soo noqotay haybadii iyo kalsoonidii ay reer Soomaaliland ku qabeen shilinkooda dhanka kalena gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu daboolka ka qaaday in la iswaafajiyay maciishada iyo sidoo kale sarifka lacagta isagoo oo taasi ku sababeeyay daraasad ay sameeyeen oo daboolka ka qaaday in si rasmi ah ay isku waafajisan yihiin maciishada iyo sidoo kale qiimaha sarifka lacaguhu waxa jiray bilihii June iyo July iyo Mayba ee sanadkan cabashooyin ka imanayay dadweynaha oo tilmaamayay inaanay wada socon qiimaha doolarka lagu sarifo iyo maciishadu haddaba si aanu taa u hubino banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu daraasad ku sameeyay 125 meehradood oo ku kala yaala dhammaan gobollada dalka iyo magaalooyinka waaweyn meheradaas waxay isugu jireen hodheelo kaalmaha shidaalka iskuulada dhakhtarada mukhayadaha meelayo far badan oo dadku ganacsadaan ayaanu ku sameynay sirfay oo aanu u diray shaqaale ka socda banka oo soo eega sicirka ay ku iibinayaan hoos ahaan ayanu xog iibsanay natiijadii daraasadaasi waxay noqotay in 160 meehradood ay ku iibiyaan sicirka doolarka ee suuqa oo ah 8500 ilaa 8400 aaga من waxa weeyaan boqolkiiba 82 meheradaha aan soo maray waxay ku iibinayeen waxay ganacsigooda ku iibinayeen sicirka doolar ku joogo suuqa 35 meheradood ee soo haray oo u dhiganta 18% ama boqolkiiba 18 waxay ku iibinayeen inta u dhaxaysa 8500 ilaa 9500 dhowr meherood fara ku tirisa 10000
ku iibinayay taasi waxay muujinaysaa inay meesha ka baxday oraahdii odhanaysay ma wada socdaan sicirka doolarka iyo maciishadu kol haddii boqolkiiba 82 meeladuhu ay ku iibinayaan sicirka doolarka ku jooga suuqa haddaba si baanka dhexe u joogteeyo isla jaanqaadka qiimaha doolarka iyo maciishada wuxuu baanka dhexe ku tala jiraa ama u qorshaysan sanadka 2020 inuu halka doolar uu ku hayo qiimaha 8,500 oo aanu marnaba gaari doonin 9,000 ama hoos uga dhici doonin 8,000 intaa u dhaxaysa 8,900 ayaanu ku hayn doonaa waliba 8,500 ayaanu insha Allah ku hayn doonaa geesta kalena gudoomiyaha bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ganacsatada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay in ay lacagtooda ku kaydsadaan cash isla markaasina ay dhigtaan bangiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale aanu kula talaynaa ganacsatada waaweyn dadweynaha shirkadaha inay keedkooda iyo lacagtooda ku haystaan shilinka Soomaaliland oo ay ka guuraan doolarka ama ugu yaraan ay isku miisaamaan hayntooda ay ku kaydsanayaan shilinka iyo doolarka